xabxabka ama qaruhu dhadhan ahaan waa mid macaan, waa mid ka mid ah khudaarta firfircoonida sameeya, waana mid u wanaagsan caafimaadka guud ee qofka. Waxaa ku jirta oo keliya 49 kaalori iyo faytamiino, waxaana leeyihiin waxtar caafimaad oo badan, waxaana ka caawin karaa miisaan dhimida si sahlan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo, comment bixi, like saar, ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyada aan soo gelino siina shargare. mahadsanid. biyaha cabitaanka biyuhu waa muhiim, waxaana jirka siiyaan inuu ahaado mid ka fuyo biyo yaraanta. sida la xaqiijiyayna xabxabka ama qaraha 92% waa biyo. tanina waa sababta keenta markaad cunto inaad dareento inaad dharagsan tahay. xabxabka waxaa ku badan biyaha, waxaanu biyo siiyaa unugyada jirka, isla markaana wuxuu yareeyaa gaajada iyo haraadka, waxaana laga helaa kaalori hooseeya. nafaqada marka laga yimaado in xabxabku yahay khudaar, waxaa laga helaa macdano iyo faytamiino badan oo waxtar muhiim ah ugu fadhiya caafimaadka, sida faytamiin A, B iyo C. waxaa kale oo ku jira macdano ay ka mid yihiin potassium iyo magnesium. faytamiin C wuxuu ka hortagaa dhaawaca unugyada ay sababaan free radicalsku. carotenoids waxaa loo bedelaa faytamiin A oo u wanaagsan indhaha kana caawisa aragga. lycopene waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan, waxay ka hortagtaa fallaadhaha cadceedda, kansarka, waxaanay u roon tahay caafimaadka wadnaha. ka hortagga kansarka qaar ka mid ah waxyaabaha laga helo xabxabka oo ay ka mid yihiin lycopene iyo cucurbitacin E. sida lagu sheegay cilmi-baadhisyo la sameeyay, waxaa lagu ogaaday inay awood u leeyihiin ka hortagga faafitaanka cudurka kansarka. caafimaadka wadnaha xanuunada wadnuhu waxay kaalinta koobaad kaga jiraan xanuunada ugu badan ee sababa dhimashada. waxyaabo badan oo laga helo qaraha ayaa faa'iidooyin u leh caafimaadka wadnaha. daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday maadada lycopene oo laga helo xabxabka ay kaga caawin karto hoos u dhigida kolestaroolka iyo dhiigkarka. qaraha sidoo kale waxaa ku jirta maadada citrulline, waa amino acid, waxay kordhisaa xaddiga nitric oxide jirka oo fidisa xajmiga xididada dhiigga, hoosna u dhigta cadaadiska dhiigga. waxyaabaha kale ee ku jira xabxabka waxaa ka mid ah faytamiin A, B6 iyo macdano ay ka mid yihiin potassium iyo magnesium, kuwaas oo waxtar muhiim u leh caafimaadka wadnaha iyo guud ahaan habdhiska dhiig wareegga. bararka jirka maadooyinka lycopene iyo faytamiin C oo laga helo xabxabka ama qaraha ayaa ka hortaga bararka jirka iyo dhaawaca unugyada. baadhitaano caalami ah oo la sameeyay 2015 ayaa muujiyay in isticmaalka xabxabku oo hoos u dhigi karo bararka jirka. indhaha isticmaalka xabxabka waa faa'iido marka ay timaado caafimaadka iyo badqabka indhuhu. waxaa laga helaa lycopene waxay naga caawisaa in indhuhuna ay noqdaan kuwo caafimaad qaba, waxay ka hortagtaa xanuunada indhaha ku dhaca xilliga daada, waxay kaloo indhaha ka difaacaan inay bararaan ama ay dhaawacmaan unugyada aragga qaabilsani. murqa xanuunka cabitaanada laga sameeyay xabxabku waa kuwo awood sare leh, si dhaqsana aad uga soo kaban karto daalka la dareemo xilliga jimicsiga. maadada citrulline ayaa mas'uul ka ah inay naga caawiso baabiinta murqa xanuunka. tanina waa sababta ka dambeysa in ciyaaryahanada orodka ay cabaan sharaabada ka samaysan qaraha ama xabxabka. timaha faytamiin A iyo C oo laga helo xabxabka ayaa muhiim u ah timaha. waxaa kale oo faytamiin C uu ka caawiyaa inay timaha ay noqdaan kuwo qara leh oo aan si fudud u daadanin amaba aanu go'in. caafimaadka dheefshiidka fiberta iyo biyuhu waxay muhiim u yihiin sidii loo heli lahaa dheefshiid caafimaad qaba. labadaba waxaa laga helaa xabxabka, sidaa darteed xabxabku wuxuu door wax ku ool ah ka qaataa badqabka iyo caafimaadka guud ee dheefmareenka. maqaarka faytamiin A oo laga helo xabxabka ama qaraha waxa uu faa'iido weyn u yahay maqaarka. wuxuu naga caawiyaa sidii uu samaysmi lahaa maqaar cusub iyo dib u soo kabashada unugyada maqaarka ee dhaawacmay. faytamiin A haddaan la helin waxa uu maqaarku u ekaanayaa mid qallalan, isla markaana u muuqda inuu duuduumay. waana sirta ka dambeysa in kareemyada maqaarka la mariyo lagu daro maadada faytamiin A. fadlan subscribe taabo, comment bixi, like saar, ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyada aan soo gelino siina shargare. mahadsanid.